boqolaal waji oo qurux badan waxaa ka fiican hal qalbi oo daacad ah. Ha ka shalaynin in aad qof jeclaatay qofkaasina uu meel cidlo ah kaaga tagay. ileen qofkaasi wuxuu ku siiyey fursad aad qof ku qalmo oo wanaagsan ku raadsato. Ha ka shalaynin haddii aad qof daacad u noqotay xitaa haddii uusan u qalmin in daacad loo noqdo qofkaasi. dadka qaar waxay moodaan doqonnimo inay ka tahay daacadnimada. Ha siinin wadnahaaga qof aanan aqoonin sida wax loo jeclaado. raaligelintu waa sifo dhif ah oo laga helo kuwa daacadda ah oo keliya. Ha jeclaanin qof aan ilaahay subxaanahu wa tacaala jeclayn. haddii ay ka fogaan karaan ilaahay adna way ka fogaan doonaan. Ha ku khasaarinin waqtigaaga qof aanan rabin in uu waqtigiisa kula qaybsado. ma dhimanaysid haddii aad weyso qof aad jeceshahay. laakiin waxaad dhimatay marka aad weyso sharaftaada. ma jirto cid mar kasta mashquul ah, keliya waxay ku xiran tahay muhiimadda liiska aad qofkaasi ugu jirto.